بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مeel kastoo aad joogtaan ba Allah awoodda leh dhammaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo cudurka safmareenka ee coronaviruska iyo cudurro kaleba waa maalinimo jimco ah 27 bisha November 2020 cudurka coronaviruska ayaa ka jira meelo badan oo adduunyada iyadoo weliba ay soo baxayaan digniino iyo waxyaabaha qaar in laga fogaado tan iyo inta laga gaarayo sanadka cusub taas oo ah baaqiyo ka soo baxaya wadamada reer Yurub qaarkood iyadoo dhinaca kalena wax laga sheegay AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford talaalka ay ku baaqeen taas oo aan la xiriirin xagga ammaanka balse la xiriirta xagga waxtarka laakiin aan ku bilowno reer Yurub ra'iisul wasaaradda dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa waxa ay u soo jeedisay wadamada reer Yurub in ay dhammaantood xanibaan ama ay joojiyaan goobaha barafka lagu ciyaaro xilliga Christmaska iyo weliba sanadka cusub arrintaas iyada ayaa waxa la qaba wadamada Faransiiska iyo Talyaaniga laakiin waxaa jira dalka Austria oo isagu walaac ka muujiya baaqa ra'iisul wasaaradda Jarmalka ra'iisul wasaaraddu iyadoo la hadlaysa baarlamaankeeda ayaa waxa ay sheegtay in dhammaan reer Yurub laga doonayo inay tallaabadaas qaadaan si cudurka coronavirus uu noqdo mid aan u badanin mar haddii dadku ay isu imaanaynin laakiin waxa ay u jeedaa haddii dadku isu yimaadaan iyagoo goobaha barafka ku ciyaaraya inay dhici karayso in dhibaato xoog la muto oo dad badan cudurku markaasi uu soo rito ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa waxa uu yiri anigu waa taageersanahay tallaabada ay ku baaqday ra'iisul wasaaradda Jarmalka waana la qabaa waxaana uu sheegay inaan kaloon taageersanahay haddaanu nahay wadamada reer Yurub gaar ahaan dalkiga Talyaaniga ayuu yiri in la xanibo amaba dib loo dhigo xilliyada la furayo goobaha loogu talagalay in markaasi barafka dushooda ee ciyaaraha lagu qabto waxaa kaloo arrintaa ka hadlay Faransiiska oo sheegeen iyaga laftooda inay ku raacsan yihiin Jarmalka inaan la furin ama aan la tegin aagaga ama goobaha lagu ciyaaro ee dhinaca skating oo kale waxa loo yaqaano ama barafka dushiisa taas oo ay sheegeen in dadka in la kala fogeeyo ay tahay Emmanuel Macron iyo weliba ra'iisul wasaarahooda Jean Castex waa Faransiiska labaduba waxay ka dhawaajiyeen in loo baahan yahay in aad loo dadaalo oo markaasi laga fogaado wixii keeni kara dhibaato iyo culays dhinaca cudurka coronaviruska laakiin waddanka Austria ayaa walaac ka muujiyay arrintaasi oo iyagu waxay doonayaan inay furaadaan goobaha barafka ee lagu ciyaaro markaasna ay tahay arrintu mid markaasi aan qumanaan doonin dacwad ayaa jirta lagu soo rogay dowladda Austria oo hadda ka hor la arkay wadamo dhowr oo yimid goobahooda barafka lagu ciyaaro in laga arkay dadka qaar inay cudurkii qaadeen taas oo loo aaneynayo sababtay u fasaxeen iyo dadka isu keeneen inay arrintaasi ay ka dhalatay marka daba la fiiriyo reer Yurub walaac xoog leh ayay ka qabaan arrintan cudurka coronaviruska laanta jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa ugu qaabilsan arrimaha caafimaadka WHO ayaa toddobaadkii hore waxa ay ka dayrisay dhibaatada iyo xaaladda aan qumanayn ee reer Yurub dhinaca kalena digniin ayay soo saartay WHO waxa ay sheegtay reer Yurub inay ku soo fool leeyihiin 6 bilood oo aad u adag oo qabow xoog leh uu jiro kaas oo keeni karaya cudurka in loo caalwaayo oo dad badan uu ka soo rito dad badan ay u dhintaan sidii muujadii koobaad oo kala horaantii sanadka 2000 iyo weliba 20ka marka la fiiriyo jaamacadda Oxford iyo sharikadda lagu magacaabo AstraZeneca maalmo ka hor waxa ay ka dhawaajiyeen in uu diyaar yahay talaalkii taasoo ay u arkaan boqolkiiba 90 waxtarkiisa in la hubiyay ayna aad u sahlan tahay adduunka geeska gees in la geeyo talaalkan marka la keedinayana inay aad u fududahay marka la barbar dhigo sharikadaha kale ee Pfizer iyo BioNTech iyo weliba Moderna laakiin cillad ayaa soo baxday iyo khalad oo cilladda ay qaladka ay maxay la xiriirtaa xagga ammaanka mise waxtarka talaalka sida warbaahinta UK iyo warbaahinta Mareykanku ay sheegayeen 24 saac ee ugu dambeeyay lama xiriirto dhinaca ammaanka ee cudurka ee talaalka loogu talagalay ee markaasi AstraZeneca iyo Oxford waxay la xiriirtaa waxtarkiisa oo sidii lagu sheegay gaabiska marka la fiiriyo dadka iyagu arrimaha ku howlanaa ee AstraZeneca iyo Oxford waxay sheegeen in arrinta khalad uu jiray marka la fiiriyo dadka qaabka iyo sida loogu kala tijaabiyay waqtiyo kala duwan waxay tusaale u soo qaateen 3,000 oo ruux oo iyagu mutadawiciin ah oo AstraZeneca iyo Oxford ay ku tijaabiyeen cudurka talaalkiisa ayaa waxay ku sheegeen in 3,000 markii hore la siiyay half dose taasoo macnaheedu ay tahay boqolkiiba 50 dooski oo la kala qaybiyay kala bar markii ay joogeen hal bil ama 4 toddobaadna la siiyay doos buuxa oo taa macnaheedu uu yahay isagoo aan dhimanayn oo buuxa kadibna la eegay qofka difaaciisa lana arkay boqolkiiba 90 waxtarkiisu inuu fiican yahay waa talaalka AstraZeneca iyo Oxford waxay haddana tusaale u soo qaateen 9,000 oo qof oo kale oo mutadawiciin oo dad iyagu ogolaa in lagu talaalay talaalka laakiin qaabka loogu talaalay aanu ahayn qaabka markii hore loogu talaalay 3,000 oo ka duwanaa
taasina waxa ay keentay laba jeer oo kala duwan oo labadaba dooska uu buuxo ayaa lagu talaalay markii dooska oo buuxa lagu talaalay 9,000 afar toddobaad ama bil qiyaastii ayaa la sugay kadib ayaa haddana dooskii kaloo buuxa lagu talaalay kadibna waxaa la ogaaday waxtarkiisu inuu yahay 62% halkii markii hore uu ahaa 90%. taasu marka waxay keentay inaanay la xiriirin arrinta dhinaca amniga iyo inuu culays keeni karo talaalku marka qofka lagu talaalo laakiin waxtarkiisa ayaa kala duwan marka la fiiriyo xagga qiimaynta boqolkiiba oo boqolkiiba 90 ay tii hore tii dambana boqolkiiba 62 waxay qabaan in arrimahani ay yihiin arrimo khalada oo laakiin aan la xiriirin xagga ammaanka qofka lagu talaalaye ay tahay xagga waxtarkiisa iminka ayay waxay doonayaan inay sii wadaan barnaamijkii ay ku tijaabinayeen qaybaha kala duwan ee talaalkii waxtarkiisa si loo saxo khaladka isaga oo ay sheegeen laakiin waxay qabaan reer AstraZeneca iyo reer Oxford talaalkoodu inuu yahay mid waxtar badan sahlan tahay sida loo qaybiyo adduunka geeska gees lacagaha ama kharash ku bixi karaan uu ka yar yahay kuwa kale oo waxay sheegeen toddobaadkii hore 3 gini oo kaliya xaggooda inuu ku baxayo halka ay Pfizer iyo BioNTech 15 gini uu ku baxayo qofkiiba laakiin Moderna ay ugu badan tahay sida ay sheegeen oo ah 25 gini waxa intaasi dheer kaydinta la kaydinayo heerkulka in fridge-ka caadiga ah ama sidaad u taqaanaan farinjeerka ama qaboojiyaha caadiga ah lagu kaydin karo midka AstraZeneca iyo waliba Oxford ay soo saareen laakiin qolyahan Moderna iyo kuwa kale ay u baahan yihiin qabow aad u xad dhaaf oo waliba gaari karaya 70 digrii marka la fiiriyo waxaa daba la eegayaa guud ahaanba AstraZeneca iyo Oxford markay dib ugu laabtaan tijaabooyinkan ay sii wadaan natiijada soo baxda oo ay la socotiin doonaan guud ahaanba bulshooyinka caalamka ugu dambaystiina UK ayaa waxaa la wadaa in toddobaadka soo socda la joojiyo arrinta ku saabsan xanimaadii buuxday 4 toddobaad ee ku eg 2 bisha December ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson waxa uu shaaca ka qaaday 2 December marka la gaaray sida buuxda loo joojiyo in England iyo guud ahaanba qaybaha kale lagu soo rogayo heerarkii kala duwanaa ee koowaad labaad iyo saddexaad oo ahaa heerarka mar walba la eegayo sida loo kala daran yahay xagga soo ridashada iyo xagga dhimashada cudurka coronavirus iyo qaybaha guud ahaanba dalka waxa uu sheegay in 3 meelood oo meel dadka England ee ku dhaqan dhinaca waqooyi bari ama dhinaca waqooyi galbeed amaba halka la yiraahdo Kent ay noqon doonaan kuwa heerka labaad markaasi la fiiriyo xagga feejignaanta cudurkan coronavirus iyadoo uu yiri labadii toddobaadba mar la eegayo taasoo loola jeedo 2 December marka la qaado xanimaadda buuxda in 16 December la eegayo xaalku sida uu yahay kadibna haddana 2 toddobaad la eegayo arrimahaasi oo dhani waa arrimo UK u aragto inay tahay laga maarmaan in markaasi isha lagu hayo 24 saac ugu dambeeyay UK waxa laga arkay cudurka 17,555 ruux iyadoo waliba 498 ruuxna cudurka ay u dhinteen marka hadaba la fiiriyo guud ahaanba adduunyada qayladhaantu waa ay badneed dhibaato xoog leh waa ay jirtay xagga soo ridashada iyo xagga dhimashada iyadoo waliba la feejigan yahay oo la ilaalinayo in mar walba la kala ilaaliyo dadku inay isu yimaadaan laba professor oo iyagu la taliyaal ka ah dhinacaas scientifiga waddanka UK waa professorka lagu magacaabo Chris Whitty iyo Sir Patrick Balance oo isagu ah la taliye dhinaca saynis yahanada ee UK ayaa waxay ugu baaqeen bulshada reer UK xilliga Christmaska ciidiisa inaanay dhunkanin ama aanay laabta saarin dadka waayeelka ah taasoo ay ula jeedaan inay dhici karto dadkan dhalinta yari inay yihiin dad sidaayaala ama cudurka qabi kara iyagoon ogeyn kadibna qofka waayeelka ku neefsan kara oo qabadsiin kara labadaba waxay sheegeen arrintaas in laga maarmaan tahay oo laga feejignaado iyadoo siyaabo kala duwan loo dabaaldegi karo la isula salaami karo in haddana la ilaaliyo oo dadka kala da'da ah intay ka fogaan karaan ay ka fogaadaan dadka waayeelka inay laabta saarin amaba aanay dhunkan si markaa nabadgelyo loo kala helo xagga cudurka coronavirus iyo faafintiisa marka hadaba aynu fiirino fariintan iyada ee maalinlaha ay cudurka coronavirus-ka waxa fududeeya sharikada dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliya guud ahaanba la geenayo lagana keenayo waa sharikada lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leyton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmar Barqadle iyo waliba iyadoo halkaas laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan laysaga daabulo alaabooyinka hadda diray sidii hadii lagu keenayo intaba
ganacsade axmed barqadle waxaa kaloo uu bulshada u hayaa guud ahaanba taleefanada noocyada kala duwan ee kuwii ugu dambeeyey iyo cunooyinka kala duwan waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949512877 dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan badhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhawaan yaana kuu soo dhawaan yaana isu soo dhawaan aan kala fogaano baryada aan badina nadaafadana aan ku dadaalno maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronavirus oo idin leh annagoo kariimkeena kaashanayna kaalinteena aan ka qaadano ka hortagga coronavirus ma sha Allah